بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn magacaygu waa Maxamed Saalax Maare waxaan halkan ku duubaynaa maanso kooban oo magaceeda la yiraahdo yaan la daawan maanta dhibkooda maansadan waxay ka hadlaysaa dhibaatadii inta badan maalmahan ugu dambeysay social media la isla dhexmarayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu dhibaateynayay waddanka Liibiya ninkan aynu Soomaalidu magafaha ula baxday Ilaahay baan wax kafine oo dhalinyarada u ciqaabay intuu xidhay ay maansadani ka faaloonaysaa maadaama Ilaahay hiba gaar noo siiyay inaan ummadan afka ugu heelino oo hal abuurkayaga aan ugu heelino waxaan maansadan ka qoray dareenkayga runtii oo ah dareenkaas oo aan qaadan waayay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayo maansadu iyaduna ba isturjumaysa waxay ku bilaabmaysaa sida tan daayartaydii dhageysta imaqlo dardaarankan dhuuxa dulmi baa ku raagay hankee xiskeena eexuu ka daalay hankeenu iska daa qabiilna warkiisa dalkeenii markaynu ka yaacnay diirkeenii aan ka qaloonay xaqa iyo cadaaladda diidnay dunidii kalena ina xoortay daayartii shalayto tahriibtay diif baa ku taala dushooda dayac baa ka muuqda korkooda magafaha dilaya dhankiisa darxumada haraadkiyo taaha nin damiir leh muu aqbaleen dadkayga uu ka dhiidhiya maanta dumarkii shalayto tahriibay darayada kufsaa u labeeya dakharada huqbaa u labaysa oonkana dilbaa u labeeya barhkoodna weeye la dooxay laga gubay dareenka jirkooda nin damiir leh muu aqbaleene dadkayga uu ka dhiidhiya maanta dar Ilaahay aan gurmad siino waa dadkeenii aan u gargaarno aan kacno walaal aan dadaalno aan dareenno oo aan ducayno yaan la daawan maanta dhibkooda yaan la eegin dayacooda yaan la duubin ilmadooda yaan la daalin degdegbooda yaan la dhowrin dawlad wax keenta ha hakranin waxaad ku darayso waa dadkaagii aan u gargaarno isku duubni baa ina deeqda diin quraa dhammaan ina haysa dhalinyaro wanaaga aan doonno aanu diidno reer hebel maansadaas oo magaceeda aan ku sheegnay yaan la daawan maanta dhibkooda intaas uma ku soo gabagabeynaa waxa muuqaalkan quruxda badan iga duubaya walaalkii Xamse Cali Jeesto waad mahadsantihiin dhamaantiin waxaan idinku boorinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan inaad fariintan gaarsiisaan inan kasta oo dhalinyaro ah meel kasta uu joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu